Subax wanaagsan saaxiibayaal marka hore. Marka labaad, hambalyo shaxdii shalay oo aan kugu sheegay oo xalay wada dhacaysay showbid inay tahay waliba boqolkiiba boqol aan kusoo qor guaranteed ah. YouTube-kani way ku jirtaa. Dabcan ciddii nagu cusubna way kasoo daawan kartaa shaxdaas. Shalay boqolkiiba boqol waa ku kalsoonaa. 6dan kooxoodna ayay ahayd oo hadda aad u jeedaan oo xalay wada dhaceen winna noqotay. Waan ku kalsoonahay shalayna kusoo qoray showbid oo waliba boqolkiiba boqol ah oo guaranteed ah. Marka laakiin sheekada ugu yaab badneed ama kulanka ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa Arsenal iyo Bournemouth kooxdan. Run ahaantii aniga aan horta 500 kooxdan dhigtay Arsenal. Laakiin waxaa kasii qurux badneed inaan dhigto ani marka waxaan ku galay markaa kow dhiganaya $1 iyo 24 senti ku galay kaligeeda aan dhigtay mar. Dan waxaa la yaabay waxay tahay waxa kasii fiican aan iraahday inaan ku galo marka $3.40 senti ay saaran ay ahayd 2 iyo 1 oo Arsenal labada gool ugu lahaa. Markaas kasii fiicneed $3.40 senti ayaa saaran markaas 5% ku fiicneed. Laakiin dhib malaha laakiin kulanka wallahi kulan cabsi ahaa. Laakiin inkastoo aan ku kalsoonahay Arsenal 2 isbuuc ka hor markii dheelisay saan oo kale ma aqaan kooxda ma xasuusto Aston Villa Everton koox kamid ah saan oo kale ay ugu badisay. Inkastoo 4 xataa marka dambe daqiiqada ugu dambeeyay 2 gool ay dhalisay. Laakiin shalay tan yaab ahayd waa marka dambe koornada la soo qaaday kadib gool waliba 96 daqiiqo cid daawaneysay 6 daqiiqo waa dhamaad 97 daqiiqo iyo above ahayd waliba. Marka sidaas Arsenal shalay ay ku badisay anigana iga fuqday. Stadgar iyo Bayern Munich sidaan ku saadaalinaba waxay ahayd ay dhacday sida u jeedaan Bayern oo ku kalsoonay inay ka badi karto kooxdaane way kaga badisay kooxda iyo sidoo kale maxaa ku raadaa u jeedaan maxaa magacay sheegay kuwan oo ruush ka dhisan iyo sidoo kale badisay sida u jeedaan Mahadsanid sidoo kale waxaa qayb ka ah France League 1ka oo iyadana sidoo kale Paris Saint-Germain iyo Nantes ay ciyaarayeen oo 4-2 iyadana ay ku dhamaatay. Inkastoo kulankan aan daawan baan ka seexday 5 saac soo galeysay. Sidoo kale kooxdan AC Sparta Braga ku qoran tahay iyo Tablig kooxdan ku qoran tahay Sparta Braga sidoo kale idan guusha ay ku raacday 4-1 iyadoo ah mar ogaal hadalkan dambe xilliga dhalay ma aqaan. Rangers iyo kooxdan kale sidoo kale aan ku kalsoonaa Rangers inay iyadana kooxdan kale ka badi karto. Marka laakiin kulanka ugu xanuunka badnaa wuxuu Arsenal xaqiiqdi oo asxaab badan laga yaabay inay daawanayeen. Marka asxaabay intaas ayaan idin wadaagay marka kulamada qaar hadda kadib oo discuss sidaan ayaan ka dhigi doonaa kooxaha ugu macquulsan soo xiri doona. Sidoo kale shax labaad aan soo suubi doonaa kooxo badan jiraan oo kale sidaas ayaan ku socon doonaa waan mahadsantihiin.